واليهود هدو تاغو هل ujeeda laga yeelan karaa يهود هدو تاغو هل ujeeda laga yeelan karaa Cabdiraxmaan Ciro halka ujeedana waa in sawirkiisa muslimiinta iyo diirka Soomaaliga ah lagu bahdilayo oo dagaal gantaal la tuurayo isagoo sida sambalkii sida loo luudinayo laga dhigo oo maxaabiista lagu cadaabo dadka Falastiiniyiinta iyo muslimiinta kale ah ee dunida dhan laga soo qabto la soo marmariyo waa gantaalkaas oo lagu gantaal lagu ridayo maxaan ku dhahay lagu la dagaalamayo diinteena iyo midabkeena halka ujeedo uu ku tagi karaa Tel Aviv waxa hadda uu ku maqan yahayna xagga ha ka daynaya Tel Aviv waxaad ka daydaan dhan kale sababtoo ah Tel Aviv aadayo dad buu ka haysan lahaa maqraatiyo ka haysan lahaa marag buu ka haysan lahaa protocol buu ka haysan lahaa hadduu nin mas'uulaya marka ninkaas ha loo boqo ha la baadi goobo dadku ay isweydiiyaan xaggu aada inay xagga ahayn inay arinta kale khatarta ah tahay salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh soo dhawaada daawadayaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed halka adiga daawanaysaanina waa SNN TV qodoboreedkeena waxaan ku faaqidaynaa ama ku dul istaagaynaa daqiiqadaha fooda inagu soo haya madaxweynaha maamulka waqooyi galbeed ama Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo la laayahay dhowrtii maalmood ay naga tagtayba Cabdiraxmaan Ciro waxa dad ugu wardambeysay inuu tagay Dubai kadibna uu soo diray wixii la socday protocol wasiir la taliye iyo cid kasta oo eheliya qaraabaheedu la socotayba uu soo diray kuwaasina ay ka soo caga dhigteen magaalada Hargeysa inta aan marka qodobkaasi u guda galin waxaan rabaa fariin muhiim ah inaan hawada idin soo mariyo qof kasta oo muslim mu'min muhsin wax la baxa ama magaalo jooga waxa geyga Soomaaliyeed guud ahaanba ka taagan oo caawintay abaar baahsan oo waxyeelaysay xoolihii iyo dadkii miyiga ku noolaa waana mid su'aal dhab ah oo in dul taagan maalinta qiyaamo iyo markasta oo rabbi wax ku weydiiyo kii wax ku dhiibay waa Ilaahay haddana abaartaasi keenay waa Ilaahay waxa uu wax kugu dhiibay inaad u maamusho sida habboon maalinta qiyaamo ay wax kaaga taraysaa halka dollareed maanta magaalo ku haysataa qof walba ha caawiyo qofka walaalkii ah ee ooman ee baahan mid ku afurin kara iyo mid ku waraabin karaba biyo dhaamin baahsan ayaa ka socota meel kasta oo Soomaaliya ku nooshahay oo miyiga fadlan ka qayb qaado oo meesha aad u mari karto biyo dhaamintaasi iyo waxtarkaasiba ku baraarugsano wassalaamu calaykum inta hadan kaga gudbo xusuusinta muhiimka ah ee garab istaaga walaalaheena ooman ee baahan ee miyiga ku dandaraysan Cabdiraxmaan Ciro waa madaxweynaha Somaliland ee dhawaan wuxuu sameeyay wixii lagu tilmaamay faxshiga ama maxaan ku dhahaayay munkarka dambi la galay dunida dusheeda kii ugu weynaa ceeb la sameeyay dunida dusheeda tii ugu weynayd buu sameeyay waxaad arkaysaan inuu call ka wacay Netanyahu oo jeesaya oo iska qoslaya oo qaadan la waxan uu sameeyo oo dhalanteed inuu yahay dareesan kaas oo uu sheegay inuu i'tiraaf u sameeyay kadib Cabdiraxmaan Ciro haddana waxa uu yeedhay imaaraadkii wadanka laga saaray oo ugu yeedhay meesha la yiraahdo Abu Dhabi magaaladaasi oo uu shirkiga qayb galayay bool ahaan loo fariisiyay Cabdiraxmaan Ciro marar hore ayaa la waayay oo la sheegay inuu Israa'iil dusay inuu meel kale aaday waxyaabo fara badan lagu tuhmayay laakiin tani way ka daran tahay midii hore oo waqti waxay ku soo aaday xasaasi ah imaaraadkuna una gudaha Soomaaliya ama Somaliland dhaxdeeda sidoo rabo wax uga sameeysan karin oo laga soo saaray danta ay kala hayd Yuhuuddu iyo wixii uga suura galay intaynaan u galin Cabdiraxmaan Ciro haddii uu Dubai tagay dadku waxay aad u wareejinayaan inuu Israa'iil u dhoontay in gaari lagu qaaday in Dubai Israa'iisha ka maqan maxay tahay Dubai hadduu tagay in Israa'iil tagay bay la mid tahay hadduu Dubai joogo oo imaaraadka uu joogo Tel Aviv ta ka maqan maxay tahay sirdoonkii Tel Aviv joogay maxaan ku dhahaayay way iimaadaan maxaan ku dhahay Netanyahu baa imaan kara oo halka uu imaan kara haddii uu badan ka bidayo isaga tagi kara marka labada magaalo aad loo kala buunbuunin waa isku mid ma aha kama dhigna Dubai inay Muqdisho tahay kama dhigna Dubai inay Riyadh tahay kama dhigna Dubai inay Ankara tahay oo magaalooyin wanaagsan tahay Dubai waa Tel Aviv waa meesha Yuhuuddu haysato Yuhuudda gacan yaraheedii baa waliba sii haysta waayo ninka weyn hadduu ku haysto Yuhuudka weyn iyo ku la soo diro oo ka guunsan midkaasi hadduu ku haysto wax la isbarbar dhigi kara ma aha marka horta Tel Aviv kama maqna Cabdiraxmaan Ciro haddii uu tagay meesha la yiraahdo Dubai taa marka yaan aad dadku u baciidsanin ama loo buunbuuninin kaba soo qaadin uu tagay muxuu ku soo biirin baa taala marka
كبا سو قاد إنه تجي محكو صابيرين بطالة يعني هشيس ومعمول قبلات لقالي أو عن شرعي نقنينين أو عن أنصح نقنينين أو يعني وحكلا إني أون لقى قبنا يموياني ما حيوقع بحان تاي هشيس كيس إني أوجيسو تل أبيب يهود وحبوقع ما بحنا يهود وإيمان كرتا وان قلي كرنا صحيح الآن عبد الرحمن عيرو عدة كلية صحيح اللي قرب كرا أما صحيح الآن تيضا وحود ما يساوي دولة فدرالك لكن عبد الرحمن عيرو صحيح إنكم حدنا وهذا هذا لنكم حدنا قرقرتنا لقى مرحبا تل أبيبنا إن لو تجو مهم ومصيحة يهود مركة تل أبيب إني جيسو أو إنكاس إني أون أولا سياسة ده أو كلا ده مسلمين تلقوا بهدليو أو رير غزة محن كل هاي اللي قلت دجال ما يو أو صور كلون يهود كرب تمو يعني يهود دن هشيس وما جينيس عبد الرحمن عيرو تل أبيب وما جينيس waxa marka loo laayahay iyo meesha uu ku maqan yahay aan daaqad kale idin ka tuso qoladan imaaraadkii waa qola faxshiya DB Wall khaasatan oo qolada Cabdiraxmaan Ciro gacanta ku haysa waa qola DB Wall oo asaasay ninkii la oran jiray Jeffrey Epstein ee faaxishka ahaa talada iyo dhaqanka iyo talaabooyinka ay qaadaanna waa uu Jeffrey Epstein wuxuu sameyn jiray dhammaan muuqaalo macsiya la duubaa dhama wax kasta oo kii sameyn karana isaga laga duubay kii kalena isaga lagu sameynayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxba kuma aha marka in shaqo kale laga hayo in isaga laga shaqeynayo waxba kuma aha ma una aadin maxaan ku dhahay Tel Aviv uma tagin shaqo iyo wax soo duubid iyo wax soo saxiix iyo huha يعني هدي وحصو صحيح يا وزير ديسا ورفافنتا يا كارمها دبده يا لا تلياشيسا سياسada يا راعي لها لكن marka isaga shaqo laga qabanayo marka intaas oo dhan laga qarinayo xukuma inuu jasiirad ti Jeffrey Epstein lahaa oo kala ah lala aaday meesha waxa kaliya loo reebay su'aalo isweydiin leh Cabdiraxmaan Ciro shaqo kuma maqnaa isaga shaqo laga hayaa aan dhahno daqada aan iska tusno isaga halis ku jira isaga badbaado u baahan isaga maanta u baahan in meeshu ku jiro intii la raadiyo wixii lagu sameeyay la baaro oo la sameeyo baaritaan Cabdiraxmaan Ciro wuxuu idin keenay daaye yuna fawaaxish inoo soo hoynin يونا سوهوين فايلال واوين او قرقرحا سيده ابستين او كله بري كمالين wax kasta ilaahay muddo leedahay xad busiya in maxaan ku dhahay dunida dusheeda dulmi inta la eg lagu sameeyay faylal waaweyn oo qarxa oo markaad maanta aragtaan maanta hadalkaygana aad soo xasuusataan yuuna soohooyin fawaaxish yuuna soohooyin wuxuu soohooyo iga daran fawaaxish yuuna soohooyin marka aan isweydiino yaan la dhihin Israa'iil buu aaday war Israa'iil kama maqna hadii heshiis uu jiro hadii wixii uu jiro waxa loogu iman karaa Dubai oo xirada sharci darrada iyo wixiga yaa loogu iman karaa laakiin in dadkii la socday oo dhan laga soo wixiyo kaliina qabri la aado waxay la isweydiiyaa adduunkan waxa ku taala jasiirada kuwa Jeffrey Epstein kuwiisii oo kala ah oo dulmiga lagu sameeyo oo macsida lagu sameeyo oo marka la tagayo dharka la dhigto sida xawayaanka oo dadka lagu bahdilo Epstein ujeedada uu kala aha waxaan oo dhan waxay ahayd in madaxdan oo dhan uu rakaato ku haysto xal sheega imaaraadkuna inay perfect ku yihiin hawlahaas iyo yuhuudoodu inta faraha badan ilaahow mu maal qabeen ahaado ilaahow ruux u yimid oo aynan arrin noocaas ku sameeynin aanu jirin marka walwal ani aan ka ahayn baa isaara dadku waxay leeyihiin wuxuu tagay yahuudi wuxuu tagay kan war yahuud haduu tago hal ujeeda laga yeelan karaa yahuud haduu tago hal ujeeda laga yeelan karaa Cabdiraxmaan Ciro halka ujeedana waa in sawirkiisa muslimiinta iyo diirka Soomaaliga ah lagu bahdilayo oo dagaal gantaal la tuurayo isagoo sida sambalkii sida loo luudinayo laga dhigo oo maxaabiista lagu cadaabo dadka Falastiiniyiinta iyo muslimiinta kala ee dunida dhan laga soo qabto la soo marmariyo waa gantaalkaas oo lagu gantaal lagu ridayo maxaan ku dhahay lagu la dagaalamayo diinteena iyo midabkeena halka ujeedo uu ku tagi karaa Tel Aviv waxa hadda uu ku maqan yahayna xagga ha ka daynaya Tel Aviv waxaad ka daydaan dhan kale sababtoo ah Tel Aviv aadayo dad buu ka haysan lahaa maqraatiyo ka haysan lahaa marag buu ka haysan lahaa protocol buu ka haysan lahaa hadduu nin mas'uulaya marka ninkaas ha loo boqo ha la baadi goobo dadku ay isweydiiyaan
xaggu aaday inayna xagga ahayn inay arrinta kale khatarta ah tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.